بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى كلمة إذا قربت وحي كسابسن تهي تلا صار شذا الله ولا ليال الله سبحانه وتعالى qur-aankiisa kariimka ah wuxuu ku leeyahay waman yatawakal qofkii tala saarto cala allaahi alla dushiisa fa huwa xasbuhu alle ayaa ku filan qofkaasi. walaalayaal, marka tala saarashadu allah subxaanahu wa tacaala la tala saaranayo waxa weeye qofka waxyaabaha daruuriga ah oo inuu sameeyo looga baahan yahay oo iimaankiisana qayb ka ahwa iimaankiisa ayay qayb ka tahay tala saarashada, waayo cidaa aan la ahayn lama tala saaran karo. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur-aan wuxuu ku leeyahay oo fii suurati shucaraa ku jirta, watawakal tala saaranow muxamedow cala alxayi allaha nool korkiisa alladii allahaasoo laa yamuutu aanan dhimanaynin. walaalayaal, marka haddaba waxaa loo baahan yahay mar walbo tala saarashada alle inaan ku dadaalnaa, haddii aan ku jirno xaalad amni iyo haddii aan ku jirno xaalad cabsi iyo haddii aan ku jirno abaar iyo haddii aan ku jirno aaran iyo haddii aan ku jirno waxyaabo kale oo markaasi ii sheeg ama xabsi ayaa ku jiri kartaa ama waxaa ku jiri kartaa masalan xaalad kaloo khatar ah, cadow ayaa adoo dhex ka taagan ayaad is arki kartaa. mar walba marka qalbigaaga iyo niyadaada ka bixin in allah subxaanahu wa tacaala aad tala saarato. watawakal cala allahi wakafaa billaahi wakiilan, tala saarasho iyo mid wakiil laga dhigto. cid la tala saarto ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kaaga filan inaad tala saarato. wakafaa billaahi alla ayaa ku filan wakiilan, wakiilnimo iyo inaad tala saarato. walaalayaal, nabi sal alay wasalam xadiis wuxuu ku yidhi low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi low annakum haddii idinka tatawakkaluuna aad tala saaran laheedeen cala allaahi alla weyne dushiisa la rasaqakum wuu idin arsuqi lahaa kamaa yarsuqu tayru sida uu u irsaaqo shimbirta. taqduu way kalahaysaa oo way jirmaadaysaa shimbirtu subax walbo alla keeno, khimaasan ayadoo baggeeda iyo beerkeeda isku dhexdhacsan yahay oo gaajoon oo caloosheeda ay maran tahay ayay kalahaysaa, duurka ay aadaysaa. wa taruuxu waxay soo caraabaysaa oo ay soo hooyanaysaa bitaanan ayadoo caloosheeda ay taagan tahay, caloosheeda ay buuxdo. waayo shimbirta ma jirta meel ay wax ku ogeed, meel gaar ah ay u shaqo tagto ama baqaar gooni ah oo raashin iyo cunto ay u taallo iyo maqaayad gooni ah ay cunto ay ka doonato ma jirto. duurkaas iyo banaankaas iska aadaysaa, iyo beeraha iyo geedaha iyo meelaha iska aadaysaa. risqiga ilahay waa ku cunaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay oo risqi ah ayay iska cunaysaa. biyaha meelaha iskaga jiro iska cabaysaa, balliyada iyo waraha iyo eegagta iskaga jiro iyo baraagaha iskaga jiro iska cabaysaa. miraha geedaha iska cunaysaa. badarka beeraha ka baxay iyo iska cunaysaa. ilaahay subxana wa tacaala waxaa addoommadiisa waa isku irsaaqa sooma. badarkii anaga aan tacbanay beeraheena ka baxay oo masago leh oo galley leh oo wax walba leh oo bariis leh oo qamadi leh ee iska cunaysaa. ilahay ku irsaaqaya. addoommada ilaahay waa isku dul nool yihiin, makhluuqa ilaahay waa isku dul nool yihiin. bini aadanka waxa weeye
ilaahay subxaanahu watacaala xayawaanaad qaarkood oo duurjoogta ay ka mid yihiin sida sagaaradoo kale iyo kuwa lamidka ah oo loo yaqaano ugaarta, waxa waaye qofkan ii sheeg rabo inuu markaa wax soo ugaarsado wuu baxayaa, duurkuu galayaa, shabaakadiisii shabaqiisa u qaadanaya, wuu soo ugaaranaya sagaaro iyo wixii kale uu soo helo soo qabsanaya, uu keensanaya, isku cunaya, lacagna uguma fadhiso. ayagana maxay samaynayaan dugaagta qaarkood iyo xayawaanada qaarkood waxay samaynayaan sida kuwa waxaa jira beeraha cuna, sida abuurka cuno oo cuna ii sheeg beeraha iyo balka iyo waxaas cunaa jiro, sida lo-doo kale, xoolaha intooda kale beeraha ayay galaan oo balka iyo waxaasay daaqaan. kuwaasna waxaa waaye ilaahay subxana watacaala irziqaas meesha ka siiyey. qofkan kaloo bani aadamka isagana irziqaas oo xayawaanaadkaas oo soo ugaarsanaya ilaaha ku irsaaqaya. marka waxa weeye ilaahay subxana watacaala tala saarashadiisa qof walbo ilaahu tala saaranaya. qofkan hadda markuu baxayo tusaalan ku siinaa kuwa kaluumaysatada subaxdii way baxaan, subax kasta way ka lahaan, badday aadaan, shabaqay qaataan, maqaalin bahasha lagu dabo malaygay qaadanayaan. ma oga in wax soo heli doono, malaay soo heli doono, inuu soo weyn doono ma ogo. tawakul iyo tala saarasho ku baxaya, baddu tagayaa, shabaaqadiisa uu badda ku tuuranayaa. haddii wax ugu soo dhacan falxamdulilah, malaay uu soo galo iyo wax lamid ah wuu soo qaadanaya. hadduu soo waayana wuu ku qanacsan yahay. tala saarashada alle ayuu ku baxay awalba. marka insha allahu tacala marka in la tala saarto allah subxana watacala la tala saarto waa wax loo baahan yahay, qof walba looga baahan yahay muslim ah. marka shimbirta sidii allah u tala saarato oo kale ayaa la rabaa inaan u tala saarno allah subxana watacaala. shimbirta iyadoo hadda shimbir ah oo xayawaan ah, maca dalika waxay garatay inay subaxdii risqigeeda ay raasato, habeenkiina hoygeeda iyo abuulkeeda iyo cushkeeda ay ku soo hoyato. ilaahay subxana watacaala aayad quraan wuxuu ku leeyahay wacala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin. wacala allaahi alla dushiisa fatawakkaluu tala saarta in kuntum haddaad tihiin mu'miniin kuwa alla rumeeyey. walaalayaal marka waxaa loo baahan yahay tala saarasho dhab ah waa in la imaanaa. dadka beeraleyda fiiri waxay sameeyaan fiiri tala saarashada heerkay gaartay markii beeraha la abuuraayo xilli roobaad ayadoo ahayn oo xilli jiilaal la joogo ay waxay samaynayaan inta dhulka qodaanay ay dhulka ay badar ku ridayaan abuur macnaha. xilli hore sii abuurtamayaan, xilli hore ayay beeraha sii abuurayaan. waa jiilaal, xilli roobaad ma aha. wuxuu rabaa marka dhibacda ugu horeysa roobka ugu horey markuu ku daa durbadiba inay beerta usoo baxdo rabaa. ma garanaysaa walaalayaal? marka dadka beeraleyda ah waxay sameeyaan marka ayagoo allah tala saaranayo iyo beerahooda ay abuurtaan. walaalayaal marka waxaan insha allahu tacaala naftaydii naftiinaba aan kula dardaarmi lahaa cabsida allah inaan badino. waxaan kaloo naftayda iyo naftiina aan kula dardaarmi lahaa inaan badino tala saarashada alle. ilaahay subxaana watacaala asaa nugu filan, asiga ayaa nugu filan. xasbiya allahu wa nicma alwakiil. marka walaalayaal muuqaalkayda insha allahu tacaala iyo kelimadeyda galabta intaas ayaan kusoo gabagabaynaya insha allahu tacaala. ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiyo khayrka, inahu waliyu dalika walqaadiru calayhi. muuqaalkan sii sheer gareeya, siina faafiyo, walaalaha kale sii gaarsiiya. ilaahay subxana watacaala qof walbo oo muuqaalkan sii faafiyo ilaahay subxana wataala dembigiisa iyo dembi waalidkiisa allah dhaafo, janat alfirdows alaclaa allah ku cazuumo. hada ma aquul وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا.